Soraya waa gabar ka soo jeeda dalka Iran, dilkeedana sabab looga dhigay oo kaliya ninkeeda oo aan naxariis lahayn. Ali oo ah sayga ay u dhaxdo ayaa ugu horeyn ka dalbaday Soraya oo ah hooyo 4 caruur u haysa inuu guursanayo gabar 14 jir ah, sidaas daraadeedna uu iyada iska furayo. Soraya waxay u sheegtay ninkeeda inaysan raalli ka ahayn furiin oo aysan kaligeed qaadi karin korriimada caruurta. haddii ay furiinka ogolaato waxaa dhacaysa in 4 ilmaha ah ee labada wiilal yihiin labana gabdha yihiin uu wiilasha oo kaliya biil siinayo, laakiin gabdhaha iyo hooyadood uusan mas'uuliyadooda qaadayn. sidaas daraadeed ayay Soraya u diiday inaan la furin oo aysan gurigeeda burburin. Soraya way u dulqaadatay garaac joogto ah, jirdil uu u geysanayo caruurta hortooda. wuxuu ka hor keenay oo cadow uga dhigay wiilkeeda ugu weyn, isagoo hooyadiis caynaya iskuna dayaya inuu u gacan qaado. Ali wuxuu go'aan ku gaaray inuu nolosha dhaafiyo Soraya si uu u guursado gabadha 14 jirka ah. qofka uu Ali doonayo inuu silciyo waa xaaskiisa, waa hooyadii u dhashay 4 caruurta ah, welina diyaar u ah inay nolosha la qaybsato oo aysan marnaba dayac la doonayn isaga iyo caruurtiisaba. wuxuu bilaabay dhagartii nolosha lagu dhaafin lahaa xaaskiisa Soraya. wuxuu u tagay habaryarteed una sheegay inay Soraya ka dhaadhiciso in shaqo looga helay guri nin xaaskiisu dhimatay oo ay maalintii cuntada u karinayso, habeenkiina ka soo tagayso. Soraya shaqadii way aqbashay. maalintii waa soo shaqaynaysaa, habeenkiina gurigeeda ayay u soo hoyataa. muddo yar kadib Ali wuxuu ku eedeeyay Soraya inay ninka ay u shaqayso xiriir hoose la leedahay oo ay la raaxaysato, sidaas daraadeedna ay ku dhacday sino. Ali wuxuu ku dhex ceebeeyay Soraya bulshada dhexdeeda, isagoo meel fagaara ah oo boqolaal shacab ay joogaan ku jirdilay, kuna dhawaaqayay erayo aad u fool xun oo ay ka mid ahaayeen in magaalada dhan ceebaysan tahay oo sharaftiisa meel looga dhacay. dadka deegaanka oo dhanna ay foolxumo u soo hoyatay oo naagtiisa ay nin kale la tumatay. duqa magaalada ay degan yihiin, wadaadkii magaalada iyo ninkii ay u shaqaynaysay oo loogu hanjabay in dhibaato soo gaarayso haddii uusan ku caddayn Soraya in falkani run yahay, dhammaantood waxay caddeeyeen inay ku dhacday fal zina ah, sidaas daraadeedna dhagax lagu dilo. markii la dulgeeyay godkii qaarka dambe looga aasi lahaa si dhagax loogu dilo, ayaa duqii magaalada ku yiri Soraya, maxaad jeclaan lahayd in erayada kuugu dambeeya ay noqdaan, maadaama adduun maanta ay kuugu dambayso? Soraya waxay tidhi, sidaan maxaad iigu samaynaysaan? waxay u muuqataa inaadan i aqoon. waxaan ahay Soraya, waxaan ahaa qof guryihiinna laga yaqaan. waan isla cuntaynaynay oo waxaan ahayn saaxiibo. maxaad sidaan iigu samaynaysaan? waxaan ahay deriskiinna, hooyadiin, gabadhiinna, xaaskaaga iyadoo ninkeeda eegaysa. sidee ku dhacday inaad qof sidan ku samaysaan? dhagaxii ugu horreeyey waxaa madaxa uga jebiyey ninkeeda Ali, aabbaheed, carruurteeda, ninkii ay u shaqaynaysay ee markhaatida beenta ah ku furay, iyo dadweyne aad u badan. Soraya waxay dardaaran u dhiibtay habaryarteed, iyadoo ka codsatay inay gabdhaha ay dhashay uga sheekayso dhacdadan oo hooyadood aysan ceeb lahayn, laakiin laga been abuurtay. nasiib darro, Ali calaf uma helin gabadhii 14 jirka ahayd oo uu darteed xaaskiisa sharafta uga qaaday, loona daldalay oo waa loo diiday.